dhinaca kalena deegaano ku yaala gobolada Nugaal iyo Mudug ayaa wiil dhalinyaro ah oo isxilqaamay wuxuu ku guuleystay in uu basas u iibiyo arday masaafo dheer u lugeyn jiray iskoolada ay wax ku bartaan oo ka fog meesha ay ku nool yihiin wiilkan ayaa lacag waxa uu basaskaasi ku iibiyay uu ka aruuriyay baraha bulshada Nuux Muuse Birjeeb ayaa hadaba warbixintaasi Garowe nooga soo diray muqtaar isxaaq xuseen suudaani oo kamid ah dhalinyarada ku dhaqan Puntland ee sida weyn u isticmaala baraha bulshada ayaa ku guuleystay arday haysatay dhibaato gaadiid la'aan deegaano ka fog goobaha waxbarashada in uu u helo 2 bas oo geeya dugsiyadooda runtii arintan aniga markaan bilaabay ama aan arkay uguma taragelin ama arin markaas marka hore aan u soo baxay meesan ahayn deegaanada aan arintan ka dhacday baa marka hore shaqooyin baan ka hayay ka bacdi waxaan arkay in caqabadahan ay jiraan ka bacdi ayaan isku taxaluujisaan oo ogaan lahaa baahiyaha deegaankaas ka jira ee ardada haysta labada deegaan ee kala ah Margaago oo 7 kiiloomitir u jirta deegaanka Bacadweyn iyo ardayda deegaanka Baday ee degmada Ayl oo u lugeyn jiray masaafo fog ayaa ugu dambeyn helay 2 bas kadib markii Muqtaar uu ku baahiyay video muujinaya dhibaato gabdho iyo wiilal ka haysata dadaalkooda dhanka waxbarashada ka bacdi waxaan go'aansaday in aan baahiyahaas soo bandhigo ardada aan bulshada la wadaago sidii ay wax loogu qaban lahaa dad badan ayaa ka falceliyay markii ay daawadeen waxaana taasi ay saashay in asxaab badan ay ku soo wargeliyaan inay gacan ka geysanayaan sidii ardaydaasi gacan loo siin lahaa arday badan ayaa ka tagay goobaha waxbarashada deegaanadaasi iyagoo dhibsanaya masaafada dheer oo u jiro dugsigooda balse aad ay u farxeen markii ay arkeen in baahidaasi laga daboolay aad iyo aad baan awal uga muruga qabnay socodka aan mudada taagta dheer oo halkan ka soconayno ilaa iyo halkan marka aad iyo aad baan uga faraxsanahay inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo suurtagelay inaan helno bas aan kaga maaranno lugtii tirada badnayd marka hore dareenkii wuxuu ahaa iskoolka inaan iska deeyno gabi ahaan saga harno sababta ama meesha ugu fogaatay tarfaad baan naga kulmi jiray anagoo kulanaana qof kasta dareenkiisa markaa fiirsinay asagoo qof kasta lagu arkas muqtaar suudaani ayaa u sheegay VOA in gaadiidkan uu u helay bulshadaasi ka fog goobaha waxbarashada ay saashay in ardayda ay ku niyad samaadaan inay sii wataan waxbarashadooda waxyaabaha ay ka badashay marka ay heleen gaadiidka iskoolka geeya waxaa kamid ah horta in waxbarashada xilliga loo tiragalay ay iskoolka yimaadaan daalkii faraha badnaa meesha uu ka baxay waxaa kaloo meesha ka baxay ayagoo aanan quraacan ama mataqaanaa aanan waxba soo cunin bay iskoolka imaan jireen waxaa kaloo meesha ka baxay xanuuno fara badan oo wadada kala kulmi jireen ha ahaadaan caqabado kale ayagana sidoo kale wadada waxaa kaloo meesha ka baxay waaga hore sida maamulada iskoolada ay sheegeen isku imtixaanaadka oo kale isku dhibca ma aysan ahaan jirin ardada deegaankaas joogtay iyo kuwa soo lugeeya sidoo kale imtixaankooda wax buu ka bedelay waxaa kaloo uu ka bedelay ugu muhiimsan aan aragn waxaa kamid ah tiradii waxbarashada marka hore imaanaysay tira ka badan baa timid kuwa badan oo guryaha fadhiyina dib bay waxbarashada ugu soo laabteen Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe